bal dib u milicso dhaqankii Soomaalidii hore, bal dib u milicso dhaqankii saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam, sidee loo dhaqmaa, sidaas la isku qurxiyaa. Waa maxay quruxdaad raadinaysaa? Sidana baad ku qurux badan tahay oo Ilaahay kuu dooray kuuna abuuray. waa maxay dhaqankaad raadinayso ee ka wanaagsan dhaqankaaga Soomaalinimo ee Ilaahay hibada kuu siiyay, aan culayska lahayn, aan foolxumada lahayn, aan ceebta lahayn, ee weliba ku salaysan dhaqanka diinta Islaamka ah. Gabadh yahay muslim ayaa tahay, laguma abuurin inaad isku ekeysiiso gaalo, weliba shabahdo sidooda inaad u dhaqanko wadada marana aad marto, lagumana abuurin inaad ka gudubto xadka Ilaahay quruxdaada ka dhigay. isbadbaadi walaashaya imika dhowday oo jooji dhaqamada xunxun, oo jooji quruxda foosha xun, hogaami naftaada kuna hogaami helinka toosan, bari Ilaahay oo toobadkeen oo diinta dib ugu soo laabo, ka har dhaqamadan gaalada, jooji heesaha aad dhegeysanayso, jooji heesaha aad isku raaxayso adoo qiiraysan, jooji dhaqan kasta oo ka hor imaanaya diintaada, dhaqankaaga islaamnimo iyo sharaftaada. waxaa tahay walaashay midda ugu quruxda badan dumarka caalamka ku nool, waxaa tahay mid Ilaahay u abuuray sida ugu quruxda badan ee bini aadam oo Ilaahay u abuuray. jooji oo badbaadi naftaada, noloshaada, diintaada, dhaqankaaga, inta aanad ka qoomamayn maalin aysan cid wax kaa maqlayn, cidsan ay waxba ku qaban karin. ma quruxdaada iyo karaamadaada iyo sharaftaada ayaad ku ciyaaraysaa? diintu ma waxa weeye in inta shalmada soo wada boqolaal kun oo indhood oo qof oo soo wada eegaya inaad dhex marto adiga oon xishoonin, khajalaad yarnayn kugu jirin, oo dumarnimo iyo islaamnimo iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba aanu xishoonin? subxaan allah. dumarkii aaway, dumarkii sharafta iyo cisiga iyo karaamada lahaa aaway, dumarkii la cisiin jiray, la ilaalin jiray aaway. maxay noloshu isku bedeshay? waa maxay sidani? dhaqamadan halkii nooga yimaadeen? gaaladan maxaynu u shabahaynaa? maxaynu u daba cararaynaa? maxaynu dhaqankooda u qaadanaynaa? maxaynu jidkooda u maraynaa? mina dad islaam ahayn, mina dad dhaqanka Soomaalinimo haysta minaan ahayn. dhaqankeenaba dhaqan ka wanaagsan baa jira oo ka qurux badan. dhaqanka soo jireenka iyo xeerarka aan ku dhaqmanin weligeed baa inagu soo nooleen. maxay naga dhaqaajiyeen? walaashay isbadbaadi, badbaadi naftaada iyo noloshaada, badbaadi iimaanka iyo qalbiga kugu jira, oo isbadbaadi si aad u guulaysato maalinka aakhiro ee Ilaahay la hortagayo. waxba hawa adduunaad raacda waxba kuu qaban mayso, dhaleelal adduunaad raacda waxba kuu qaban maayo. shahawaadka caalamkan oda raacda waxba kuma tarayo. gabadh muslim ayaa tahay, gabadh dhaqan wanaagsan, islaamnimo, Soomaalinimo midka ugu wanaagsan ku nool ayaa tahay. maxaad isu bedelaysaa ee dadka la dhaqankooda u raacaysaa?